الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ساكو waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo xaaladda shidaalka ee dalka subaxan saaka ee sabti haamaha shidaalka ee magaalada Berbera kuwii qaranka iyo kuwii daabshiilba shidaal bay la ciirciirayaan labadii wiiga u dambeeyay saddex markab baa yimiday mid ay leedahay Red Sea mid ay leedahay maxaa la yiraahdaa daabshiil iyo Trafigura haddana shidaalku waa qaali sababta qaaliga ka dhigtana wax kala maaha waxa weeye shidaalkii baa la kaydsaday oo lama iibinayo si maalinba in yar suuqa loo soo geliyo oo ummadda dhaqaalaheega loogu baadho ayaa shidaalkii oo haamihii Berbera ka buuxa la iibin laayay waxa diyaar loo noqdo shacabka lagu doonayo in lagu ciqaabo shidaalkii oo magaalada Berbera yaaloona diyada ka qaaliyoobin in ummadda lagu qaaliyeeyo mushkiladda dhanna waxa weeye waa shirkadda Trafigura la yiraahdo shirkadda Trafigura waxay ahayd in maadaama arrin dhaqaalaha dalka saameyn ku leh tahay golaha wakiilada la hor keeno waa markii saddexaad aan ka hadlo shirkadaas si uu golahan u jaangooyo wixii culays dhaqaale ku keenaya bulshada waxaan saaka mar labaad soo jeedinayaa in xeerka shirkadda Trafigura la hor keeno golaha wakiilada shirgudoonka waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha golaha wakiilada in la dalbo heshiiska shirkadda Trafigura si uu golahan ummadda uga hor qaado caqabada weyn waxa war ku haynaa inay Trafigura shidaalkii ku jiray ay iibin laadahay iyadoo rabta inay yamxeeriso oo maalinba inta qiimo wanaagsan u jaraysa ay shacabka ku baarto marka waxa warbaahinta la wadaagayaa inaad arinta ka war doontaan idinkuna golaha iyaguna waa ka howlgelaya 10 litir maanta waa $10 weey ala litir waa $1 weey wax la qaadan karo arintaasi ma shidaalkii Berbera buuxa ayaa hadana la iibin laayo haamihay buuxan waxaan soo jeedinayaa wasaaradda ganacsigu inay tallaabo degdeg ah ay ka qaado arintaasi oo shidaalkaasi la soo